لبان يوسف علي كور وزيرك وزارة هرمرنت بيها Somaliland ayaa si rasmi ah xilaalkii uu kala wareejiyay agaasimii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland iyo agaasimaha cusub loo soo magacaabay wasaaraddaasi munaasabad kooban oo ka qabsoontay hoolka bilasay wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah xukuumadda Somaliland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somaliland mudan iyo mas'uuliyiin kale oo lagu macsuubay munaasabadani iyo shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland waxa ugu horeyntii munaasabadan xilaalka loo kala wareejiyay agaasimii hore wasaaraddaasi iyo agaasimaha cusub loo soo magacaabay wasaaraddaasi ayaa waxa ka hadlay mid kamid ah agaasimo waaxda wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland oo ku hadlayay afka shaqaalaha wasaaraddaasi oo ka sheekay waxa qabadkii agaasimo hore wasaaraddaasi oo muddo dheer ay soo wada shaqeynayeen agaasimaha cusubna waan soo dhaweynayaa waan la shaqeyn wanaagsanna waan u ballan qaadaynaa hadaan nahay agaasimayaasha iyo dhammaan wasaaradda shaqaalaheeda waxayna halkaas la daba maray xubno ka tirsan xukuumadda Somaliland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somaliland iyo mudan iyo marooyinkii kale lagu macsuubay munaasabadan xilaalka loo kala wareejinayay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland aad iyo aad baan runtii ugu ducaynaya maxamed waa nin dhalinyaro oo karti leh aqoon leh tusaale u ah dhalinyarada reer Somaliland shaqada Somaliland taale dawladda loo shaqeynay challenge bay leedahay maxamed wuxuu dadka dheeriyay وقفك challenge-ka يعني u adkaysta qofba marka meel loo dhibo marka soo qayliya wada waxana yimid waxana yimid waa nin awood u leh inuu taxamilo dhibaatooyinka shaqadu ay leedahay waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee cusub maxamed yuusuf oo ah nin aanu shaqooyin badan intii aanu golaha ku jiray isna uu joogay airport ninaanu soo tijaabinay kartidiisa iyo hufnaantiisa waliba anigoo ka tirsanaa guddida maaliyadda iyo dhaqaalaha oo inta badan eegta qofkaasi shaqada halka uu kaga jiro xagga dhaqaalaha iyo hufnaanta nimaan soo tijaabinay maanta halkan fadhiya waxa isagoo halkaas ka hadlay agaasimo hore xilka laga wareejinayo Jamaal Cabdi Muuse ahna agaasimaha cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha ee Somaliland agaasimo Jamaal ayaa ka sheekay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddaasi waxyaabaha ugu jiray qorshaha ay wasaaraddaasi ka howlgalaysay waxa isagoo inta hadan kaga tago heega ama dheega ama qalfoofka ay leedahay wasaaradda horumarinta biyuhu waxa muhiim ah mudan agaasimo guud wasaaradda xilkeeda agaasimaha guud maanta la wareegaysaa waxa leedahay himiladeeduna waxa weeye inuu dalkani helo biyo nadiif ah oo ku filan dadkeeda loo helo isla markaana kor loo qaado heerka tayo hubinta biyaha nadaafadda biyaha iyo fayadhowrka guud taas waa himilada ku sugaysa inaad fuliso sidoo kale agaasimo guud wasaaraddani waxay leedahay hiigsigeeduna waxa weeye in la kobciyo oo kor loo qaado biyaha dadka biyaha xoolaha biyaha deegaanka biyaha warshadaha iyo wixii la mid ah arintaas waa arrin weyn oo ku sugaysa mudan agaasimo guud iyo marti sharafta halka joogta dhammaantiin wasaaradda horumarinta biyaha waxa u degsan mudnaan ay leedahay oo ay ka duulayso oo ay tahay inay gaadho mudnaanteeda waxa ka qabashada biyaha oogada dhulka sida dhismaha biyo xidhannada qabashada biyaha roobka halkaas ka hadlay agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil oo ka sheekay waxyaabuhu qaban doono isagoo si sabootay agaasimii hore wasaaraddaasi loona magacaabay agaasimaha dastuurka ee Somaliland rajeenaya wax xun wanaag mooyaane inaydan wax xun aydan iga filin dadaalkaas iyo hawlaha qaranka u haysaan wixii aan idinku dhaamo inuu ku kordhiyo mooyaane إن شاء الله وعن شعلي كدره إن أنا نقولون ميرفي إن شاء الله يقدر على كقاعد دوران مصيبة وزارتنا هو حقوق قضايا وسير سلامة على كورة مركز لقي مادة سياسة دجودة قرنك هي مدحونها جمهورية الصومال لنا لقوش شقينا يو وذيك إنه ودوا سلامة سجن السياسة دي سوبر وكل شقين دونا وكل شقين دونا إن شاء الله تعالى ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo ka sheekay muddadii ay soo wada shaqeeyeen agaasimii hore ee wasaaraddaasi soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasina kana sheekay qiimaha ay leeyahay biyuhu wasaaradda horumarinta biyuhu marka loo eego mas'uuliyad ahaan oo wasaaradda qarankan u haysa mas'uuliyad aad u ballaaran مسؤوليات آد أبلارن ومركا دبادة كتشوكتو
aadan runtii maskaxiyan ku dhammayn karin mas-uuliyadda lagaaga baahan yahay laakiin marka aada gudaha u soo gasho ee tuulo kasta iyo qof kasta xitaa individual maalintii malaha 1,000 qof baa i weydiiya nooc su-aala oo ku saabsan biyaha haddaan laamiga maraya iyo haddaan gaadhiga saarana ma dhacdo wasiirada kale in la weydiiyo pressure noocaasa inay ku dhacdaa ma dhacdo ka ugu yari wadada markaan maraya waxaa lagu yidhahdaa biyihii Hargeysa goormay mara ugu dambeyntii waxa uu si rasmi xilaalka ugu kala wareejiyay wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore agaasimihii hore ee wasaaraddaasi agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaraddaasi Cali Qamacali sawir qaadasir Cabdirashiid Daahir Faayid telefishinka Badda Cas Hargeysa